dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iideysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Adiga ayaan kula hadlayaa. Haa, adiga. Waa adiga daawanaya muuqaalkan. Kala dhexbax muuqaalkan xigmadda ku jirto iyo riyadii aad nolosha ka lahayd. Soomaadan rabin inaad guulaysato, noloshana maqaam sare ka gaarto. Haddaba dhegayso oo daawo muuqaalkan. Waa sheekada mid ka mid ah dadyowga dunida ugu caansan, soona maray tijaabooyin kala duwan oo nolosha ku saabsan, si uu guul u xaqiijiyo. Haddii ay dhabkaa tahay oo aad u jeclan tahay inaad noqoto qof guulaysta nolosha, waxa ugu fiican ee aad samayn kartaa waa inaad naftaada barto sheekooyinka dhiirigelinta leh ee dadka caanka ah ee nolosha maqaamka sare ka gaaray. Dad badan oo raba inay guul ka gaaraan noloshooda, ganacsigooda ama shaqadooda ayaa ku fashilma sababtoo ah ma garanayaan intay qofka ku qaadato inuu guul gaaro iyo sida ay u eg tahay waddada guusha. Waxay arkaan oo keliya natiijada ugu dambaysa, taasi oo ah guul uu qof ayaga lamida gaaray, iyagoon wax fikir ahba ka haysanin wixii uu qofkaani soo maray. Ujeeddada aan muuqaalkan kuugu soo gudbinayo ayaa waxay tahay inaad wax badan ka ogaato sheekooyinka dhiirigelinta leh ee dadka guulaha gaaray, iyo sidoo kale inaad barato sida waddada guusha u eg tahay, iyo dabeecadaha aad u baahan tahay inaad yeelato si fursadaha aad guul ku gaarayso ay u noqdaan qaar aad u sarreeya. Sababta dad badani ay uga aaminsan yihiin fikir qaldan guusha waa iyagoo arka uun natiijada ugu dambaysa, taasoo ku timid shaqo adag oo qof bini'aadan ah oo isagoo kale uu qabtay, isla markaana waxay u maleeyaan inay nasiib ahayd. Haddaba halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa qisada nin ka soo bilaabay hoos ilaa uu gaaray cirifka sare ee guusha. Maxaad ka og tahay qisada iyo noloshii uu soo maray ninka la yidhaahdo Morgan Freeman? Morgan Freeman waa mid ka mida dadyowga ka saaray noloshooda hanyarida, liidnaanshada, fulaynimada, gadaalka baqidda. Maxay dadku iga aaminsan yihiin? Waxba ma qaban karo. Waxaan ahay Afrikaan madow ah, sidaas darteed horumar saa'ida ma gaari karo. Heerka noocaas ah ma gaari karo. Weli waan yarahay. Berri ayaan samaynayaa. Intaas oo kelmado ah oo ay caanka ku yihiin dadyowga nolosha ku fashilma. Intaasba Morgan Freeman wuu dhiliid gareeyay, maskaxdiisana wuu ka saaray. Morgan Freeman wuxuu ku dhashay dalka Maraykanka taariikhdu markay ahayd 1937, wakhtigaasi oo ku beegnaa wakhtigii midabtikoorka lagu haayay dadka madowga ah. Qoyskiisii waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican tan waqti xaadirkaas ka jirtay dalkooda. Laakiin taas dhag jalaq umuu siinin Morgan Freeman, isagoo kala kulmaaya bulshada hadallo aysan u fiicneen inuu qofka bini'aadamka ahi maqlo. Laakiin taas waxaa ka weyneed rajadii ka dhex guuxaysay maskaxdiisa, taasoo ah inuu maalin maalmaha ka mida noqdo dadka ugu saamaynta badan dunida. Morgan Freeman wuxuu jeclaa inuu noqdo actor, lacagtiisa iyo wakhtigiisa inta ugu badanna wuxuu ku bixin jiray si uu u daawado aflaamta. Marar badan wuxuu isku dayay inuu noqdo actor, balse kumuu guulaysan. Hamigiisa ah inuu noqdo actor caana oo dunidoo dhan laga yaqaan waxay ka soo bilaabatay markii ay da'diisu jirtay 9 sano. Mar kasta wuxuu jeclaa inuu ka qayb galo kana mid noqdo jilliinka iyo ruwaayadaha lagu soo bandhigayo iskoolkiisa iyo meel walba oo ka mid ah waddooyinka magaalada uu degganaa. Hamigiisa ugu weynna wakhtigaas wuxuu ahaa inuu noqdo actor. Wakhti aad u dheer kadib, Morgan Freeman wuxuu ku biiray inuu noqdo ciidamada diyaaradaha ee waddankaasi Maraykanka. Muddo dheer ayuu shaqadaasi hayay. Kadib maalin maalmaha ka mid ah ayuu go'aan ku gaaray inuu iskaga tago shaqadii uu u hayay waddankiisa, una hayaamo dhankaas iyo hamigii uu lahaa yaraantiisa, kaasoo ahaa inuu noqdo actor caana oo dunida laga yaqaan. Morgan Freeman da'diisu waxay gaartay 45 sano jir, isagoon wax guul weyn ah weli xaqiijinin, laakiin muu niyad jabin. Wuxuu sii waday dadaalkiisii iyo iskudaygiisii. Wuxuu guulaystay markay da'diisii gaartay 50 sano jir. Halkaas waxaad ka baranaysaa inaysan guushu ku xirnayn da'da aad jirto. Adigoo da'daadu yar tahay ayaad waxaad xaqiijin kartaa guulo waaweyn oo dadka qaarkiis aysan marna gaari karin. Guusha laguu sheegayaa waa isbiimayn, inaad isbiimayn karto xilliga ay xaaladdu kugu xun tahay. Culimada saynisku waxay guusha ku qeexeen inay tahay mid ku gabanaysa dhabarka dambe ee fashilka. Fashilku waa waddadii guusha. Haddii aadan arkin wax ka hor imaanaya, guushu ma dhowa.
Morgan Freeman wuxuu dalabyo badan u dirsaday shirkadaha filimaanta sameeya, laakiin wuxuu kala kulmi jiray diidmo ilaa uu markii dambe qaban jiray ruwaayado scholarship ah oo bilaash ah si loo arko inuu talent u leeyahay jilidda, laakiin wax natiijo ah kamuusan helin. Waqti badan ayuu rafaad soo maray, wuxuu soo arkay wadooyin badan oo aan guul lagu gaari karin. Ugu dambayn wuxuu ku soo dhacay wadada guusha, waxa uuna noqday actor caan ah kadib markuu bilaabay jilidda filimaanta isagoo jira da'da 50 sano. Markay da'diisu gaartay 67, Morgan Freeman wuxuu ku guuleystay biladda aflaanta midda ugu fiican ee la yiraahdo Oscar kadib jiliddiisii loo wada bogay ee filimkii la magac baxay $1 Million Baby. Kadib waxaa daaqada ka soo galay guulo waaweyn oo uga imaanaya dhankaas iyo shirkadaas Hollywoodka. Waxa uu jilay filimaan badan, waxa uu ku guuleystay jaaisooyin fara badan. Morgan Freeman waxa uu u qaab eg yahay mid ka mid ah dadkii dunida wax ka bedelay, waana Nelson Mandela. Hadallada uu caanka ku yahay Morgan Freeman waxaa ka mid ah: noqo qofka aad tahay, noqo geesi gacanta la geli kara god madow oo abeesooyin ka buuxaan, had iyo jeer samee waxa aad jeceshahay, ku noolow farsamadaada iyo caqligaaga, kuna joog dunidan kartidaada. Wax un samee, ha yaraato ama ha badnaato, wax ka baro dadka kale, dadka khabiirka ah, dadka soo maray nolosha adag, kor u qaad qiimaha noloshaada, ha baryin dadka, adkaysi yeelo, mar walbana dhoola cadday. Hadalladaas ayuu caan ku yahay Morgan Freeman, meel walbana wuu ka sheegaa. Ninkan hortaada ka muuqda waa nin aad iyo aad u maskax badan, ma hadal badna. Waxyaalaha ugu badan oo ay dadku ku barteen ayaa ah aamusnaanta faraha badan iyo codadka uu filimaanta uga sheekeeyo. Morgan Freeman waa producer, soo saaraha filimaanta, sidoo kalena waa actor iyo ka sheekeeye inta uu filimku socdo. Waa kan codkii uu uga sheekeynayay filimkii abaalmarinta Oscar uu ku qaatay ee lagu magacaabo $1 Million Baby. There are those of us who like to venture to the unexplored, to see the beauty in the strange and unknown. Those of us who go out there with a sense of wonder. Hantida uu hadda haysto Morgan Freeman waxaa lagu qiyaasaa balaayiin dollar. Haddaba maxay yihiin casharada laga bartay noloshii Morgan Freeman? Qodobka koowaad, waxaad u malaynaysaa inaad ka habsaantay xilligaad riyooyinkaaga xaqiijin lahayd. Morgan Freeman wuxuu guul gaaray markay da'diisu noqotay 67 sano jir. Ma u malaynaysaa marka inay da'daadu weynaatay? Freeman wuxuu bilaabay inuu guuleysto markii ay da'diisu noqotay 50 sano jir. Haddii aad u jeclan tahay oo aad jeceshahay inaad ku guuleysato wax waliba, weli maada habsaabin. Qodobka labaad, ma nasiiba mise waa adkaysi? Qofka si uu guul u gaaro waa inuu la kulmaa guuldarrooyin fara badan. Morgan Freeman wuxuu guul daraystay marar fara badan ilaa ay da'diisu gaartay 40 sano jir isagoon wax guul ah xaqiijinin. Balse maadaama uu yahay qof aad u adkaysi badan, wuxuu maareeyay inuu ku guuleysto riyadiisii markii ay da'diisu gaartay 50 sano jir. Dhinaca kale, arrintaa nasiib ma aha, balse waa ku celcelis badan ilaa aad ku guuleysanayso waxa aad rabto. Qodobka saddexaad, raac oo ka shaqee waxa aad jeceshahay. Kuma guuleysan kartid shay haddii aadan jeclayn, balse dhab ahaan waxay noqon doontaa mid aad kuugu fudud inaad ku guuleysato waxa aad jeceshahay marka la barbar dhigo ku guuleysiga waxa aadan jeclayn. Qaado go'aan adag oo aad ku xaqiijinayso yoolkaada, weligaa gadaal ha fiirinin. Noqo geesi hoggaanka u haya noloshiisa oo dhan. Madaxweynihii ugu horreeyay waddanka Mareykanka oo la oran jiray Abraham Lincoln ayaa wuxuu la kulmay isagoo raadinaya waddadii guusha, kumanaan guuldarrooyin iyo kumanaan waddo oo aan lagu gaari karin guusha. Rafaad iyo silic dheer kadib, da'diisu markay noqotay 60 jir, ayaa waxaa loo doortay Abraham Lincoln madaxweynaha dalka maanta ugu quwadda weyn ee dalkaasi Mareykanka. Mar wax laga weydiiyey sida uu guushaas ku gaaray, ayaa waxa uu ku jawaabay hal kalaam oo xigmadi ka buuxdo. Wuxuuna yidhi, ma fashilmaysid ilaa inaad isdhiibto mooye. Morgan Freeman isna waa sida ninkaas oo kale. Waxa uu soo maray tijaabooyin kala duwan oo fashil ah, maantana naftiisa iska daaye. Dunida wax laga weydiiyaa. Morgan Freeman waxa uu aasaasay shirkado badan oo isagu leeyahay. Taasina waa midda ka dhigtay maanta shakhsi aad looga qadariyo dalkaas Mareykanka iyo dalal badan oo dunida ka mid ah. Heerkaas wuxuu ku gaaray karti iyo adkaysi badan oo uu nolosha kula dagaalamayay. Qoyskiisu waxay ahaayeen
kuwa aad u faqiira oo nolosha la tacaalayo, balse isagaa ka soo saaray godkii faqiirnimada, dunidana baray. Walaalayaal, marka aan idiin soo gudbinayno muuqaaladan oo kale, maahan in dadkaas oo keliya ay wax samayn karaan, noloshoodana beddeli karaan, balse ujeeddadeennu waa inaad adigu cashar ka barato halkan, kadibna aad noloshaada dagaal la geshid sidii aad ku guulaysan lahayd adduun iyo aakhiraba. Waa muhiim inaad isbeddel ku samayso noloshaada si aad uga baxdo xayndaabkan iyo qolkan mugdiga ah oo aad ku dhex jirtid. Weligaa ha isdhiibin intay nafi kugu jirto. Kaasina wuxuu ahaa Morgan Freeman oo ka mid ah dadka dunidan saamaynta ku leh. Waxaan sii wadi doonnaa muuqaalada noocan oo kale ah. Haddii aad ka heshaan, waxaan ka dhigi doonnaa tixane oo mid walba mid ka xiisa badan yahay, insha Allah asbuuc walba. Teeda kale, taxanaheenna buugga dariiqa guusha halkiisii buu nooga sii soconayaa haddii Ilaahay idmo. Fadlan sheergaray channelka si uu u gaaro bulsho fara badan. Raad fiicanna hoos noogu reeb. Waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.